abara afartii subaxnimo ee saaka ayaan ka ambabaxnay dekada weyn ee magaalada Berbera waxaana u sii jeednay socdaal dheer oo aan ku mareynay xeebta u dhaxaysa magaalada Berbera iyo sidoo kale magaalada qadiimiga ah ee Sayla safarkeeguna waxa dhinaca badda ayaa waxa hogaaminayay maryaha guud ee dekadaha Soomaaliland iyo sidoo kale taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland iyo saraakiil ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha socdaalkaygan oo qaatay muddo 12 saacadood ah ayaan goor gaaban ku gaadhnay magaalada Sayla ka horse inta aan soo gaadhin magaalada Sayla ayaa waxa abbaara 12 maalinimo aanu badweynta u dhaxaysa magaalada Berbera iyo Sayla aan kula kulannay ku dhawaad ilaa iyo 22 doonyood iyo sidoo kale in ka badan 100 shaqaale ah oo ka kaluumaysanayay xeebtaasi kuwaas oo si sharci darro uga kaluumaysanaya ama dhuumasho xeebtaasi oo masaafo gaadhaysa ilaa 45 mayl dhinaca bari kaga beegan magaalada Sayla hadda xaaladdu way isbedeshay guud ahaan ciidanka ilaalada xeebaha ayaan la soconay ama markabka dagaal waxa uu galay diyaar garow xooggan sida arkaysaan ciidankuna waxay diyaarsadeen hubkooda kala duwan meel ila qabatay ayaanu ka aragnay doonyo sida adhiga u taagan xeebaha Soomaaliland ee Sayla waanu soo gaadhnay doonyo aad u tiro badan oo ay tiradoodu gaadhayso ilaa ku dhawaad 20 doonyood oo kalluumaysto sharci darro ah oo ka yimid waddanka Yemen oo ku sugan xeebaha Soomaaliland ciidanku hadda waxay soo saareen markabkan dagaal ee aanu saaka kaga soo boqolay magaalada Berbera wadayaashii ama naaqodayaashii doonyaha ayaa qaarkood la soo saaray sida aragtaan markabkan dagaal oo waqtigan halkan saaran sidoo kale waxa doonyahan saarnaa dad ay tiradoodu kor u dhaafayso ilaa 100 shaqaale ah oo iyagu ku hawlanaa kalluumaysiga sharci darrada ee ka socday xeebahan Sayla doonyahani ayay ciidanka ilaalada xeebaha ee Soomaaliland ay isu feeraariyeen isla markaasina ay si kadis ah ay u qabteen iyagoo si baraadli iyo uga kalluumaysanaya xeebahaasi ciidankan ayaa markii ay qabteen 22 doonyood sida sharci darrada uga kalluumaysanaya xeebta ayaa waxaanu u soo kaxaynaa waa ciidanku ay u soo kaxeeyeen magaalada Sayla oo markaasi masaafo gaadhaysa ilaa 40 mayl dhinaca galbeedna kaga beegan markii aanu soo gaadhnay magaalada Sayla ayaa halkaasi waxaan ugu soo dhaweeyay maamulka magaalada Sayla oo mas'uuliyiinta halkaasi ku soo dhaweeyay ciidamada ilaalada xeebaha ayaa iyaguna halkaasi salaan ku siiyay taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland hadallo laga soo jeediyay madashii lagu soo dhaweynayay oo ahayd xeebta dhinaca bari ee magaalada Sayla ayaa waxa kamid ahaa yaan ku soo dhaweynaa waxaan leenahay welcome ku soo dhawaada gobolkii Salil anigoo inta soo dhaweynta hadalka ku soo koobi doono oo wixii barnaamij ay noo dambeeyo waxaan ku soo dhaweynaa wafdi balaaran oo ka socda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kamid yahay maariyaha dekadaha Jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha guud ee ciidamada xeebaha ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha saldhiga koowaad ee ilaalada xeebaha koowaad maariyaha xigeenka afooyinka dhammaan waxaan ku soo dhaweynaa ku soo dhawaada degmadii Sayla ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad baan halay soo dhawaada waxaan leenahay horta marka koowaad gobolkii Salil ku soo dhawaada mar labaad degmadii Sayla ku soo dhawaada waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan waan dareemaynaa shaqo qaran baa u socotaan ilaa afartii xalay badda ugu soo jirteen si qarankiina wax xoogaa lagu noqotaan runtii annaga farxad ahaan bay nagelinaysaa ka gobol ahaan xoogaa noqoshada rasmiga ah ee u soo saacadaha dheer u soo socoteen time-ka dheer soo socoteen waxaan filayaa in socodkiina noqon doono mid guul weyn wata taariikhdana ku santami doono mariyaha guud ee dekadaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi oo isagu halkaasi ka hadlay ayaa ka mahadnaqay soo dhaweynta ay u sameeyeen maamulka iyo shacabka ku dhaqan magaalada Sayla waxaana sheegeen ujeedada socdaalkoodu in ay tahay sidii ay u soo kormeeri lahaayeen dekada Sayla iyo sidoo kale goobo qadiimi ah iyo goobaha dalxiiska oo ay ka mid tahay xeebta ama jasiiradda Saacaddiin runtii waxaan idinka mahad celinayaa sida sharafta leh karaamada leh noo soo dhaweyseen waa markii koowaad inkastoo joogay maarayahaygii dekada Sayla runtii muddo dheer baan sugayay inaan imaado laakiin waxaan doortay inaan badda soo maro taasoon ku guulaysanay iminka intii aanu safar ku soo jirnay muddada dheer ee aanu sugaysay waxaan ugu kalifay waxaanu la kulannay kalluumaysato sharci darro ah oo tallaabo adag ka qaaday jananka ciidanka ilaalada xeebaha iyo ciidankiisuba runtii iminkana nala socda isagana faahfaahin ka bixin doona marka mar labaad iyo mar saddexaadba muddada dheereed na sugayseen waa idinka mahad celinaynaa sida wanaagsan ee noo soo dhaweyseen waan idinka mahad celinaynaa guddoomiye iyo dhammaan madaxda kale ee gobolka Salil iyo degmada Sayla dhammaan iyo guddoomiyaha degmadaba taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Xuseen Faarax Xiirar oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka mahadnaqay soo dhaweynta loo sameeyay maariyi baa yiri
socdaalkaygu wuxuu ahaa iskaashi maareeyaha iyo annaga naga dhexeeya iyo annagoo helay weel naafaca oo aanu ku qabanno ama ku dabargoyno wixii kontrabaana wixii sharci darraa annagoo helay waxay noqotay inaanu safrigii ugu horreeyay idinka idin siino waana la kulnay doonyo badan oo 20 gaaraya haddaan 15 ahayn naaqudayaashii ka soo dejinnay qaar baa la sharci baanu nahay wixii sharci wixii kale maca guddoomiyaha oon arki doonnaa barasaabkii oo goobjoog ka ahaan doona dhammaanteen reeraan ka geli doonnaa hadday sharci haystaan ku joorfali mayno laakiin waxaan filayaa inay u badan yihiin macallimiinta iska iman jirtay dhagaxna ka jiri doonaa haddii ilaaha ka dhigo mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somalilan xeebaha saylac